kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekada cirbadii eelka reebtay. sheekadan waxaa qoray Cabdullaahi Saalax Axmed. waxay ku bilaabanaysaa qaybta koowaad. murugo oo idil ayaa igu dhagan in ka badan inta naftayda aan u caraysanahay ayaan bulshada u cil qabaa. murugada iyo urkutaaladuse waa igu kaligay sidan qabo ma jiro qof soo jeeda xilligan dambe. waa si fursad fiican oo aan naftayda kaga takhalusi karo. hayla yaabin 7 bilood ee ugu dambeysay sidaas ayaan ahaa. halgan ayaa naftayda inoo dhaxeeyay. jirka iyo maskaxda oo dhan baa isdiidan. xididada ayaa iska hor imaanaya. waxa ugu culus loolanka wadnaha iyo maskaxda ee dhexdayda ku hardamaya. go'aanada culus ee degdeguna uu ka muuqdo ee qalbiga ka imaanaya ayay maskaxdu kala shaandhaysaa. caqli ku darbay istiraahada. caqli bay ku dartaa muddana mawdka ayaan ka baxsanayay. habeen kasta tashiga ayaan la noolahay. hal rajo ayaa sawaabariga i gaarsiisa. haa, hal keliya. taasina waa arkidda nafta aan agjoogeeda xiiseeyo. 7 bilood dartii inaan u noolahay iyo in mawdku iga soo habsaamay ayaan garan la'ahay. subax isma aragno oo faquuqa walbahaarka igu abuuray ee bulshada igaga imaanaya ayaana kala qariyay. galbaha qaarse ayaan ugu tagaa cusbitaalka xaafadda ee dhawaan loo soo wareejiyay. isaga ayaa igula taliyay imaanshiyaha galabtii. naxariistiisu waa mid ka mid ah dabiicadihiisa wanaagsan ee tirabeelka ah. shalay aroortii ayaan u tegay. foolkayga ayuu murugada ka akhristay. sidee wax u jiraan ayuu iga naxsaday. anoo weli aamusan ayuu igu yidhi, ma waddadii baad soo martay? madaxaan u ruxay. dejinta xaaladdayda ayuu isku howlay, isagoo niyadda ii dhisaya, jahliga bulshadana dhinacyo badan iga tusaya. waxaas oo dhanse waxaan ku ilaawaa kaftanka iyo dhoolla-caddeyntiisa bilaashka ah ee aan ka waayay kuwaan dudaya uun ee moodid colaadintayda inay u bahoobeen. saaka waxa iga caraysiiyey haddii uu i weydiiyey. waxaan u sheegay inaan maray dariiqii yaraa ee xaafadayda ka dambeeyey. waxaa meel hortayda ah taagan 3 hablood oo aan 2 garanayay. daris baaynu nahay. waxaan ka warqabaa inay dhigtaan jaamacadda kulliyadda caafimaadka gaar ahaan. waa taa ayaa i soo gaartay. way i soo jalleeceen. waxayna igu yidhaahdeen waa tii bugtay, iyagoo u haysta in ay faqayaan. codkooda wuu i soo gaarayay. carrada aan qaba darteed ma ku leexataa ayaa igu soo dhacday. haddana talooyin badan oo dhakhtarku i siiyey ayaa maskaxdayda ku soo dhacay. waxaan naftayda ku qanciyey inaan hadalkaygu waxba tarayn, buuqna uu sii abuurayo. waxaan kaloo sii ogahay cadaalad xumada bulshada i saarayso iyo eexda ay igula kacayaan. dhinac baan isku riixay anigoo derbiga raacaya, iskana dhigaya inaanan maqal hadalkooda. kolkaan Axmed u sheegayna intii karaankiisa ah aad ayuu ii dejiyey. xanuunku qadar eebbe inuu yahay wuu i xasuusiyey. Axmed waa qofkii ugu horreeyay ee iga waraysta xaaladayda baryahan dambe. indho shakila iguma eego. sida uu ii dhiganayo ayaad ka garataa inuu dhuuxayo hadalkayga. taasi waa ta igu dhiirigelisay inaan u xaal warramo. waan hubay qof kasta oo bulshada ka mid ah inuu qalad igu xukumayo. mid naftayda dayacday, waraabayaasha baylaha u noqotay igu caynayaan. xirfadlayaal caafimaad ayaa ku takooraya isma lahayn. axmed se markaan u imid ee su'aalaha dhaca ah i weydiiyaba waxaan dareemayay nafisaad. waxaan gudagalay sharaxaado aan baryo ku dhiiran waayey. markaan soo hadal qaadana la oran jiray waa beenteed. su'aalaha aan abid layga rumaysan ee uu madaxa u raxay waxaa ka mid ah sidee baad xanuunka ku qaaday, goorma ayaa lagugu sheegay, iyo qaar kale oo badan oo dhalinaya bilaabidda sheeko dheer. sheeko iga dhigtay tuka baalcad waxaanan uga bilaabay. daawadayaal, waxaan halkaasi ku hakinaynaa qaybtii koowaad ee sheekadii cirbadii eelka reebtay. haddaba la soco qaybta labaad ee sheekada.